maanta halkan waxaa ka dhacay go'aan aan sharci ahayn oo laga booday la jabiyey xeerarkii dalku lahaay oo dhan oo guddoonka iyo baarlamaanka qaarkood jabiyeen ayadoo marka ugu horraysa xeerkii qaranka Soomaaliyeed uu ku dhisnaa 60kii ilaa hadda la jabiyey oo ah qofka muwaadinka Soomaaliya inuu leeyahay xaqa koowaad in shaqo la siiyo waad ogtihiin dadka Soomaaliyeed 90% ma shaqeeyaan waxaanu leenahay khubaro waaweyn oo caalami ah oo bangiyada adduunka ka shaqaysay oo hawshan u ah ehel u ah waa la diiday waxa la yiri ajnabi waa tartami karaa ha yimaado waxa weeye qofkii muwaadinka ahaayoo qatan isaga iyo carruurtiisa qatan tahay in ajnabi la yiraahdo kaalayo nala shaqee oo bangiga dhexe ka shaqee su'aasha koowaad waxa weeye kitaabkee lagu dhaaranaya horta ilaa gudoomiyaha bangiga markii la magacaabo waxa lagu dhaariyaa inuu dalka iyo dadka daacad u yahay kitaabka Ilaahay oo Quraanka ah waxaan rabnaa ajnabiga ninka qofka ajnabiga ah oo aan muslimka waliba ahayn kitaabka lagu dhaaranayo waa rabnaa labo waxa dastuuri ah oo sharci ah oo qaanuuni ah in af Soomaali qofka madaxda ah iyo qof kasta oo Soomaali af Soomaali ku hadlo gudoomiyaha bangiga dhexe hadduu Soomaali noqon afkeebu wax noogu sheegaya dadka Soomaaliyeed ma Ingiriis bay ku hadlaan ma Talyaani bay ku hadlaan ma Hindi bay ku hadlaan ma af Chinese bay ku hadlaan afka Ilaahay siiyo gaarka inoo ah waxa weeye afkeena waa inuu afka yaqaanaa saddex anugu waxaan dhaar ku maray anoo wakiilka shacbiga Soomaaliyeed wixii ku khaldan inaan diido aniga isuguma kay jirto dawlad qaran iyo qof jacayl waa dhaafay qabiil jacayl waa dhaafay qoys jacayl waa dhaafay qaran jacayl baan maraya 1990kii waxaanu isku khaladnay qofka xukunka haya iyo qarankii markaasaanu waxaad moodnay qofku inuu qarankii yahay no anu xilbaan baan maanta bari waa ka tagayaa qof kale iman haya qaranku waa soconaya shacbiga Soomaaliyeed baa iska leh waxa weeye qof kasta waa laga maarmaa laakiin qaran lagama maarmo qof kasta oo madaxa waa laga maarmaa waxa bedelahaya muwaadin kale oo ka fiican hadduu rabo waxaanu ognahay khaladaad badan in dalkan laga soo galay waa ka aamusnay dawladnimada Soomaaliyeed inay socoto haddeerna inay socotaan rabnaa laakiin in dalka la bixiyo badda Soomaaliya 350 nautical kilometers ama kilometer badeed weeyaan inta zoonka la yiraahdo wixii halka ka dambeeyana waxa la yiraahdaa continental shelf maanta waxay maraysaa 3,333 kilomitir in la yiraahdo Chinese oo kale oo xaalufiya waxaas ma yeelayno anu gudigaasaan ku jiraa gudiga beerahan ku jiraa gudiga xoolahan ku jiraa gudiga kalluumaysiga ku jiraa ma yeelayno qayb yar oo Kenya lagu haysataa laga qaylinayay hadda laysimaa la wada bixiyay kulli waxa lagu xaalufiyay 6 bilood badda shirkadaha Shiinayska ah badda koonfurta maxaa galbeedka Afrika oo dhan dawladaha ku yaala 6 bilood baa lagu xaalufiyay awal baa biriga aan xaalufinay oo xoolihiisa dhammaan rabaan maya yeeli mayno arrinta maanta dhacday waa joorfal weeye waa dambi weyn waxay la iskeeltoo la mid tahay tii muwaadinka Soomaaliga cadawga loo dhiibay mana yeelayno sharcigaasina ma shaqaynayo dib baa loogu noqonayaa xeer hoosaadkii baa la jabiyay oo ahayd 3 aqrinood inuu maro dadka laga dhaadhiciyo shacbiga Soomaaliyeed daawadaan meesha dood u socoto ma bobsis horena waa laga xidhay baarlamaanka waa u jeedaan baarlamaanka xiridiisu macnaheedu waxa weeye qorshe loogu talagalay baa qorshahaasna ma yeelayno baarlamaanka dib baa loo furayaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inaysan arrintaa yeelin waa xaqoodii weey aad waa mahadsantahay